Soomaali waa islaamay meel kastoo dunida joogtaanba maanta waxaan rabaa inaan laba kalmadood ka idhaahdo boardkii Tajora ee dawladda Djibouti Ethiopia dadka nin wala meel soo doonaya ayuu la maray laakiin aniga meel wanaagsan buu ila maray meeshii uu ila marayna waan dadkan u sheegaya oo la qaybsanaya boorka Tajora aniga wuxuu ila muuqdaa inay tahay guul soo hoytay dadka reer Tajora iyo guul soo hoytay dadka Ethiopianka boorkii uu dhisan yahay laamigiina uu dhisan yahay infrastructure-kiisi waa sax waxa loo sheegay Ethiopia waa boor bay'ah mustara waa commercial board idinkuna waad ka faa'iideysanaysaan dadka meesha ku nool way ka faa'iideysanayaan way ka labisanayaan dhaqaalaha halka maraya ayay ka iyaguna ka faa'iideysanayaan oo bay'ah mustar ka noqonayaan laftoodu qayb bay ka noqonayaan idinkuna waa si fudud baad uga faa'iideysanaysaan waa board dhisan oo muftaaxiisi la idinku wareejinayo 100% marka waxay noqonaysaa win and win idinkuna waad guulaysateen reer Tajorana way guulaysteen guud ahaan reer Djibouti way guulaysteen oo dadkii dhaqaale ayaa soo galay waa kow ta kale waxa ay muuqata in wixii la oran jiray MOU albaabada u soo xiray boorkaas MOU wixii la oran jiray albaabada u soo xiray geeskan Afrika igaad iyo OAU intaba wareeriyay iyo wadamada kale caalamka wareeri inuu albaabada u soo xiray ayay muuqataa taasina ta saddexaad Ethiopia waxa meesha u taala in su'aal la weydiiyo hadda boorka dartii Ethiopia ma waxa doonaysay bad iyo boor dhisan mise dhul Soomaaliyeed baa doonaysay Ethiopia warka laga sugaya inay bad doonahayd ay wax kala soo degto iyo inay wax kala doonaysay oo dhul Soomaaliyeed duulimaadka ku ahayd arintaas oo taala Ethiopia warkana iyada ayaa laga sugaya arinkana siyaasad baa lagu keenay waa siyaasad anigu siyaasadda had iyo jeer constructive-ka ee hore u socodka waan jecelahay anigu dalka Djibouti 45 sano ka sii maqanahay markii aan dhoofayay $100 waxa la igu sarifay 17,500 maantana halkii buu joogaa that means dhaqaalihii iyo dawladdii iyo siyaasaddii ayaa wada socda waa 45 sano markaan Qaahire tagay $100 waxa la igu sarifay 80 gini oo Masriya ardadii jaamacadaha ku jirtay iyo kuwii kulliyadda ciidamada ku jiray way kollay wixii maqlaa way garanayaan $80 buu ahaa $100 80 gini buu ahaa maanta waan Google gareeyay waxaan arkay 5,700 inuu yahay $100 gini ka yaalkaas Djiboutina 45 sano halkay joogtay bay joogaan lacagteedii waa solid ma dhaqaaq waxa keenaya siyaasad taagan oo degan iyo dhaqaale taagan oo koraya hadii ka lacagtani bar hore warqad noqon lahayd marka siyaasadda waan ku taageersan Ismaaciil Margeel inuu dalkan horumar u sameeyo madaxweyne haddaad keento digaagad soo iibiso naala dhalayso 10 xabo 20 dhalayso maalintii aad keento oo dadku digaagadaas idin dhalayso ilaashada oo naaladeedana cuna oo ku raaxaysta haddaad tiraahdo haddii ninkii aad u dhiibtay oo haysto midi uu rabo inuu digaagadii qala ka waran digaagadii naalada dhalayseed keentay inuu qalu rabaa waa nimanka boorka joogaan ku tilmaamay rag baa sidaas oo digaagadii inay qashaan rabo haddaad keento sac 100 litir oo caana ah laga keenayo maalintii ninkii aad u dhiibtay uu rabo midi haysto rabo caanaana inuu cabo sacana inuu qasho ka waran eed ku aamintay marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa meeshani hadalkeedu waa badan yahay waxa loo baahan yahay right person iyo right position ninkii halkan loogu talagalay inuu shaqeeyo ee wadaniga ahaa maaha nin meel kale kontract ka soo qaatay maaha inay wadaniga ahaa in meeshan loo dhiibay horumar samayso ayaa la rabaa sidaa ula soco waxa la ii sheegay in si board ku leeyahay fix telephone fix oo international lagala soo haro maraakiibtu kala soo hadla telefonkii 4 sano ma shaqeeyo inta boorka uu jiro barbara ma shaqeeyo waa la bedelay mid kale ayaa la furo cusub kaana kuma jiro Google-ka arinkaana madaxweyne ogow madaxweyne waxaan rabaa inaan ku sheego iyo dadkaba waxa jira inaan yarba aabihii la quraacday subax markaasuu aabo quraacani macaana muxuu ayaa soo hooyday ma sameeyay markaasuu aabo hooyaa samaysay laakiin waani noo booray kii yara booritaanka xataa ma garan wuxuu aabo maalin walba noo boor that means ku ruqaaso hooyo maalin walba
markaasuu ihi ma dhacayso markaasuu ihi maalin haddaba inoo boor si aan qureecaa macaan u cunno markaa madaxweyne waxaan kaa codsanayaa maalin inaad boorka ka warhayso boorkani inaad ka warhayso cadow ku dhex jira baa jira oo boorkani inuu hore u socdo diidan oo dalka dagaal ku haya oo xuurta nagu haysta ayaa jira cadowgaas in farta lagu fiiqaa loo baahan yahay dalkan dhibaato aan ahayn maamul xumo ma jirto oo sii boortka ka taagan haddii sii boortka la soxo walba hagaagaya madaxweyne arrintaasaan adiga kaa codsanaya inaad ka warhayso sometimes inaad boorkaa soo marto waayo wasaaraddii waxbarashada ayaa idna sidaa ka daran waa adiga arkaya nin 9 bilood hortoo dhintay ayaa la dalacsinaya mustafa facebook wuxuu ku maqan yahay aqoonsiga somaliland mashquul ku yahay isagii safiirkan jooga Addis Ababa waa team dhan waa group dhan oo aqoonsi raadisa wey marka waxbarashadiina waa adiga arkaya halka ay marayso hablo yaraa waxbarashada la siiyay gabiile laga keenana waa adiga arkaya cidda Djibouti la way garan waaye waa adiga arkaya way garan waaye Djibouti yala waaye qabaylka dagaalku dadkii hawe ka saareen marka madaxweyne waxa loo baahan yahay hadeed inaad toosh qaadato oo meeshii jiiftad meeshii oo mididan lagsitay la qalayo ad hubsato ayaan ka baryeena iyaan ka rajeynayna waana dadaalaysaa oo dalkani waa solid dhaqaalihiisu waa ka u kacsaya uu kore waxa kaloo jira madaxweyne awdal isteedaan nahay waan ku sugaynaa adiga iyo xasan sheekhba waana nagu raagteen nin la sugayo idna yaa sugi annagana dhibaatadii qabiilku nagu hayeen waa nagu socotaa ninkii la oran jiray Abiib waa la xidhay SNM baad wax ka sheegtaa lagu xidhay dowlad wali ma ay gaadhin wali waa SNM innaga xasan guuleed markuu calanka qaaday uu la wareegay dowladnimada wuxuu yiri albaayi maanta ugu dambaysa Djibouti baa noqon shaadirlayaashii Faransiiska u shaqeynayay waa la cafiyay cid walba waa waaciso iyaga ilaa imika waa SNM waxay doonayaan SNM ayay dadkii ku dhibaataynayaan وإهانات بيكو هيا دادك سيدي دابا قبيل دير دولاد ما نقضو قبيل لا وحبا لغو ما درصدو واي وحي وا قبيل قبيل دي قرار ما نقون خرو مركا إن وح لغو درصدا دنبي هايد با السنام هدي دادك لغو دباي ورانو السنام بان هايد دقال بان هو الله قيب بان كان نقون دقال كياد قليسين kuwa dagaalamaya siyaasadda waan lahayn ismaan orgele dadka dhaqaalaha bixiyuha aniga walaalkay madaxa SNM buu ahaa ceesa ayuu ahaa anigu SNM baan ahaa ashwaaq baan ka bilaabay meel la oran jiray oo Sacuudiga ku taal Jidda oo lacagta lagu bixin jiray ayaan ka bilaabay inaan lacagta bixiyo dhibaatadu waxay nagu soo gaadhay waa SNM baad haydeen anigu dibana u nahay markii ay wax noqdeen dabada nagu soo kala qaadeen ay iska dhaaf wax kale meeshan baarlamaanka ay dadka ku caayeen ay ku ihaaneenayeen kuma jirna inagu waxaan geysano dhibaatii ma jirto waa SNM baad haydeen waa dadkii wax tare baad haydeen way waxbaadna tarteen markii ay liiteenna waad ogtahay sida u hadli jireen aniguna waa garanaya adiguna waad garanaysaa walaaltinimo muxubo xawaayib isjecel oo carab wada gala bini Axmed bini Haashim bini Cabdallah al-Xudeyd ilaa halkaas khulafaa raashidiinka ka wada galayeen maantana dhibaato kale ma jirto oo ciise uu kaga maqan yahay maamulkaas waa SNM baad haydeen SNMna kama qaan gaadhayaan oo dowlad baad noqoteen male rag iyo dumar halkan ay joogaan SNM baan lahayn warsamaroon SNM ma hayn ma SNM buu ahaa dhulbaanta ma SNM buu ahaa warsageli ma SNM buu ahaa maxaad ugu qasbaysaa dadka wixii atiin idinku iska ahaada maxaa lagu xidhay Abiib waa nin samaroon baa lagu xidhay nin kaloo daarooda saas aad u xidheen dhako loo oran jiray saas loo xidhay bari waxaan ka baqayaa inaad xidhaan batuun SNM darti isaaq ma hadarti aad ku xidhaan marka kuwan samaroon ee u niikinaya ee kabaqaadka daba socdana waxa la yidhi waa dhaqaale waxay u baahan yihiin waa baahi waa gaajo waxa u geynaysa iyo kursi jacayl baa u geynaya marka dadka inay ka xorgoobaan ba u baahan yihiin inay awdal state ka xoroodo u baahan tahay dhaqaale haysata awdal state dhaqaalihiinu Soomaali buu ka badan yahay laba ceer oo shidaala iyaan leenahay oo badii baan leenahay oo biyihii socdaan leenahay awdal state-na maaha gobol
دول سمرون وليه عيسية سمرون وليه قاربع عبادة يوله سمرون ويان أودل ستيت مايا أودل سيلع باب اللورتشر أودل ستيت وعيسية سمرون وقعبها يسقف صبر ما قعاس أنا كل شغالين إن كنا صعونينا وحبها دي بسننا قول بنا كو قاعدين هرمرنا كاسا كو قاعدين نكون عبيب معلم بو قلطمي قالت كيو سميوي waxa uu ku xiran yahay maalintii Turkiga u soo wada baxeen eed ogeedeen inta ilaa ka dadkii u soo baxay eed ogeedeen ayuu Soomaaliland ka dhex boodbood u dhigay Soomaaliland hay Soomaaliland waa taas oo wixii anaga naga soo gaadhay sana markaan ahayn waka Soomaaliland wata dhibaatada ku keentay maalintii hadda tiri Awdal State madaxweynaha Awdal State baan ahay hadda tiraado waa lagu garab joogsan la cidna kuma timaadeen kuwan kaba qaadkana kulamada yimaada 100,000 oo inan oo dhalinyara ayaa ku safnaa oo dhex joogtay habeenkii waxaanayay weydaartay weeye maanta hada waxaad qaadaysaa laakiin qabiil qof kale ma xidhan karo qabiil ahaan laguma haysan karo oo nin samaroonaa tahay waxa ku xidhana waa habar walba ku xidhatay oo meesha ugu jirta de kuma haysan karaan waa godob hadday ku haystaan reer baa ku xidhay waa qabiil waxa ku xidhay reer baad u xidhan tahay qabiil la iskuma aamini karo nin walba ha ogaado qabiil qaran ma noqon karo halkaas marxaatiidinka hargeysa marxaatiidinka inuu qabiil qaran noqon karin hatta aduu isku dayo inuu sida qaranka u socdo saddex talaabo markuu qaado qabiilka ku soo noqonaya oo koranaya sanad baanahay qabiil qaran ma noqon karo yaa ka celinaya qarin qabiil yaa ku damaanad qaadaya haddaad wax ka noqoto dibitee ka noqoto amba wasiir ka noqoto iyaga ka afkooda ka celinaya darawalkii baa ku caay qaadulaha ku caay krishbeyga ku caay xamaalka ku caay tuuga ku caay siyaasiga ku caay caaqilka ku caay suldaanka ku caay boqorka ku caay dhamaantood wad bahdil maysa way ku bahdilayaan saas ku caayaan ma qalmaan ma qualified inay dawlad noqdaan ma qalmayaan dhaqankooda markaad aragto wadadkii ay dadkii la noolaa oo dhibaatada ay ku hayaan ما نقول كره دولة أتبع السلام يا صومالي ملك استودوني ذا جوكتابا مركا نوك أوضل ستيت هدان هاي حال كيغوا ديار وحنسوغ إنا ملحوين إسماعيل مرقلي يا ملحوين حسن الشيخ إذن كان نسوغ إنا نين لسوغ يو أدى يسوغ